بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Najax Maxamed Saciid. barnaamijkan kaga qayb qaadanayay u hiili haliyeyga hanka leh oo runtii magacaadu qiimo badan ah hamiga sare ama hamil caali oo fikirkeeda iska lahaa Cabdiraxmaan Geestiil. runtii waxa weeye waa fikirku dayasho mudan. sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb qaato. barnaamijkan waxaan kaga qayb qaadan doonaa haddii alla yiraahdo kelmadda ama mawduuca aan ugu magac dhigay hamiga sare. maadaama oo runtii uu mawduucani ama barnaamijkan uu yahay dhalinyarada soo hindistay mid lagu dhiirigeliyo dhalinyarada hanka leh. waxaan jeclaystay oo soo jiitay magaca loo bixiyay barnaamijkan. mar labaad waan u mahadnaqayaa. run ahaantii haddaan intaa ku soo khulaasay introduction-ka waxaan kaga hadlayaa mawduucan hamiga sare ama hanka sare. run ahaantii hanka sare markaynu leenahay hami waxa weeye waa waxa lagu warwaro. waxaan odhan karaa hami waa waxa lagu warwaro ama qofka uu isagu jecel yahay had iyo jeer inuu gaadho. runtii dhalinyaraduna inay han sare lahaataa waxa weeye arrin aad u muhiima. waan dhiirigelinayaa. mawduucan run ahaantii waxaan odhan karaa hami waa doonista qofka ama rabitaanka halka laga bilaabo ayaa la odhan karaa hami. run ahaantii hami ama hamiga sare qofka waxaa looga baahan yahay niyad dhaba inuu la yimaado marka la doonayo inuu dee micnihii qofku hankiisa ka turjumayo siduu uga mudho dhaliyo waa inuu la yimaadaa go'aan rasmi ah. waa inuu la yimaadaa niyad dhab ah. tallaabada koowaad ee runtii looga baahan yahay shakhsiga markaa han kale waxa weeyaan inuu isku dayo wuxuu doonayo. doonitaan dhaba ayaan odhan karnaa. waxyaabaha runtii lagu gaadhi karo waxaa ka mida run ahaantii saamayn weyn ayay ku yeelan kartaa oo qodob weyn bay ka noqon kartaa bay'ada uu qofku ku sugan yahay. oo waxa weeyaan qofku haddii uu bay'a waxa weeyaan cilmile uu ku sugan yahay runtii hankiisuna uu sarraynayaa. mid runtii cilmi ahaan iyo akhlaaq ahaan dhisanna uu noqonayaa. oo cilmiguna dee waxa weeyaan waxa qofka haga oo runtii waxa weeye dee u hoga tusaaleeya nolosha wadiiqooyinkeeda kala duwan. inaad hesho waxa kaloo odhan karaa inaad hesho dad kaa sarreeya ama aad hiigsato ayaa waxyaaba aynu ku gaadhi karna ah. run ahaantii waxaa kaloo isaguna laga maarmaan ah waxa weeyaan iimaanu billaah inaad ilaahay runtii waxa weeyaan iimaankiisa ama aad ku xidhan tahay oo waxa weeyaan aad ilaahay qof ku xidhan oo iimaankiisa uu qawi yahay aad noqotaaba runtii suurto gelinaysa inaad hamigaaga aad gaadho. sidoo kale waxaad suurto gelin kartaa adduca inaad duca la timaadido dee aad ilaahay barido oo waxa weeyaan dee qofka waxa weeye dadka had iyo jeer mu'miniinta ah ee u dhow ama xadhigga ilaahay haysta way ka fursad badan yihiin dadka inta kale. waayo wakhti dheer oo ku qaadan lahayd qofka kale waxa laga yaabaa waqti meel yaroo dhow isagu inuu u maro. waayo waxa weeyaan wadada kaliya inuu guusha runtii ku hanan karno inaynu iimaan dhaba la nimaadno oo aynu ilaahay runtii ku xidhnaano. taas ayaa dhalinyaradana runtii hankooda qayb weyn ka noqonayso ku boorinayaa. waxa kaloo iyaduna qodob muhiim ah cizzatu nafs inaad naftaada aad waxa weeyaan kor yeesho oo wax aliyaalo wax hadee hoose oo dhan aad runtii iskala weynaato. oo waxa weeyaan qofka mu'minkii waa inuu ku qanacsanaada halka ugu sarreysa nolosha. run ahaantii waxa kale oo iyaduna aan odhan karaa inay muhiim tahay qodob runtii laga maarmaan ah qofku inuu noqdo qof tadaawuca oo isdhuldhig leh. qofkaasun baa noqon karaa runtii qof hamigiisa xaqiijin kara. waxaa muhiim ah iyaduna runtii kalsoonida nafta oo qofku inuu isku kalsoonaado waxa weeyaan dadaal iyo juhdi. waxa weeyaan haddii aad hami leedahay waxa loo baahan yahay inaad dee hamigii inaad ku soo koobtid uun afka maahay waa inaad dadaalkii iyo juhdigiina la timaadaa si aad u xaqiijiso ahdaafta aad markaas leedahay. run ahaantii inahaasan ku soo khulaasaynaya
dhalinyarada aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan run ahaantii ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan oon leeyahay dhammaan dhalinyarada reer Somaliland ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba hadda iyo mar kasta iyo meel kasta u hiili haliyeyga han kale bad mahadsantii magacaygu waa Najax Maxamed Saciid barnaamijkan kaga qayb qaadanayay u hiili haliyeyga han kale oo runtii magacaadu qiimo badan ah hamiga sare ama hamil caali